waxaa jira in guurka lagu xasili jiray waqtiyadii hore kuwii dhexe iyo waqtiyadan dambaba qaarkood badi laakiinse hadda waxaa soo kordhaya dhalinyaradii isguursatay oo haddana markiiba furiin uu ku imanayo sidee baad u aragtaa qoysas badan oo burburaya iyagoo daayar waxba waana kaga bixin haye maxaa kaga baxay dee haye nin walba inaan cadoo urursanoo bacda ka jeexo waa doonaya haddii aanu waxaa laga baqi jiray ilmaha korintiisa iyo meherka iyo guurka marka hore waxaa laga baqi jiray guurka oo kharashiyo hanti iyo maal ku bixi jiray marka labaadna waxaa laga baqi jiray meherka marka laga bixi saddexaadna waxaa laga baqi jiray ilmaha korintiisa ninkii marka hore wax kaga bixi maayaana afar tagsi u yeedhanaya waatan shanta afarta boqol giimbaarta laysu dhiibaya inta laohanaya reer $200 la dhiibaya ohanaya oo $200 reerkii $5,000 baa $2,000 baa kaga baxaya oo dayn ay gelayaan marka la wareejinaya inta $2,000 baa habartii kaga baxaya ciriya dhul meel kastaa ka keentee dahabkeedii bay iibinaysaa kabaheedii bay iibinaysaa amaah bay qaadanaysaa $2,000 baa habarta kaga baxaya iyadana $300 baa loo dhiibay oo ninkii gabadha guursaday u dhiibay meherkiina la bixinayo wax meher isu dhiibaa ma jiro ilmihiina iyadaa la hadhaysa oo uu ka dhaqaaqaya oo dhib dambe laga weydiin maayo muxuu ku yaranaya guurku gabadhuna intay urursan tahay ay bad qabto cid kasta oo dee itaal u haysaaba waa wuxuu is qabtaa waa doonaysa marka waxii laga baqi jiray markii la waayay dee waa ilaahay waxaaga noloshaada waxaaga wax kugu dira mid kale barbar dhig hadda abgaan haddii qiimaha guurka xilligan duruufahan lagu jiro iyo dhaqaale yaraanta oo weliba dadkii dhalinyarada ahaa aanay dhammaantood dhaqaale gacanta ku haynin miyaanay tarantii yaraanayn haddii guurka la adkeeyo oo matalan dhaqaale adag lagu xidho oo lacag badan tusaale ahaan in lagu bixiyo taasi miyaanay dabrayn guurka 9 qof oo silix ku kora 3 qof oo haybad ku kora dhaama haye tirada dadka xagga rabay ka qorantaado yaraan horta yaraan mayso qofka tirada u qoran ka yaraan mayso haye naagtan qura baa laga siin lahaa haye ilaahay markuu ubad la doonayo 16 may dhalan qofka dumar waaru afar baana loo baneeyay ninku inuu afar dumar guursado laakiin uu furintay haye habeenka naag doonaya aniga mid kale soo caashaqo ee horeyaan furin ha joogtay hore tii hore مشكلة ماشي تهلوها هوي يمكن كمان يربو صار واحد هي صدق عرورة هي هو يلا بتشوجا هي صدق دي عرورة هي هو يلا بروحون عيا وقبل لا يرجون كده إذا هردت إذا قروح بدل معان أيوة قلنا عيا نروشة صدق دي قفوا ونعيبة لبوي لي قبل ويا ما هو صدق قبل وعبت تدبته وبحيسه سمعت كلام ما أنت واحد دركتين قدار فليالو بسلي بينيان واحد دركتين قادي بينيان واحد دركتين جوجل بينيان واحد دركتين مفيق الله وريجيان واحد دركتين عن الله وريجيان لما ندول الميكو كورنيسه لقيتي إن كده أنا قاعد معنا يا متكلم طبعا فديا أو مساحة يا وليبة إن كده صدق عروض وريجيسو هي جامعتك كسر سالسة أو سكول ده هاي كسر سالسة جور ده ما يوجد كيسة هي صدق عادي جاء لما جور صدق قبل الرج إنما ضله إنما قبلها داني بدنين قبل لبضة يصدق قبل وضله ولا جور صدق أنت بدن الصومال هو يجور صدق لكن قبل ده إنما ضب بدن له لما جور صدق دور كائن له هي ولا قبها هي سمعت كلام مركا نيجي وحوي قتكي noloshii inuu labada manchooda qaadka wuxuu helay in laba manchooda qaad u siista haday u korodhana gabadh yar mid kale u eeganaya isagu iyana waxa laga tagay 3 caruur ah oo 10kii aad ku soo baxdo 3 10kii kugu soo baxba 7 ale maanta 3 caruur wadaya 4 caruur ayaa mid walba iyadu korinaysa marka wadan darada rag haysato nasiib darada ka dhacday dalka nasiib waxa ogtahay gabadhu way ka qaalisantahay ninka ruuxdiga waranta hurri arintii duubu noqo wali ma sharxin inanta nasiya noo meheriya habdhaq dhaqankan guurka imika la isku siiyo hoteelada ablaha taas barkiraako horta gabadhu markii hore waa ogtahay oo qaalib ah waxay ka qabsan jiray ragii hore
cabdi bacluul dee sheekadiisa wadaysa afar jeer oo la halxalaaleeyo mar dab lagu halxalaaleeyo mar faras nin leeyahay lagu halxalaaleeyo mar geel lagu halxalaaleeyo mar tolkaa inta ku ogol intaasi waa inuu gaadhaan aad soo kaxaysataa lagu wax dab badan buu la soo mara markii ugu dambaysay waxaa la yidhi gabadha la kaalay dhabar jabkeedii gabadha waxaa le goynteedii la kaalay baa la yidhi waa kan tolkii u yimi oo tolkii oo ka cadhaysan dee maal wuxuu lahaa uu dhameeyey oo wixii uu awood u helaya dhameeyey xoolaa la hadlay wax kale limin ma hooyaane igu laashay meeshii dadkuba laydhad ka ahaaye 60 ariya iyo qaalin bay limini joogtaa bal liil galiya caawana wixii lagula laamayo waa kii lahaa soomaad garan guniya baaleeg abow mar baa igu hadhaya moosinkai riday abow haddaan moodku dilin maahiray dhali abow qabiiliga mar weyn ha igu madiyeyn abow mar kudha waadana rag midab haldhaaley abow ragmanidiisa waa u meedhacsamaada waa dee sheekadeeda waad og tahay soomaad garan waad og tahay xaaji cumar camay xilaahay furan 100 baa ku mehersanaysaan oo 100 baa ka bixinaysaan oo dabka iyo faraska wadataan baa ka tegaysaan oo dariiqada haysataan baa ka baxaysaan oo dariiqa kala qaadanaysaan buu ku yidhi oo ku marsiiyey inantu haybadii iyo qiimay deelahayd horta guurkeedu inanta xidhniinkeeda la xidhay guurkii hore marka ninka aan hantida gaadhaynin ee awooddaa lahayn inan waanigii ku sheegado gaadasha la odhan jiray inan gaadashaana uu doonayo dee wuxuu isku degeli jiray raganimadiisa inuu la tago way badnaayeen gabadh la tago diintuna sidan uma faahfaahsanayn waa la meherin jiray gabadha waa la meherin jirayoo waxaa la odhan jiray masaafo 3 maalin guur wad maalin guurka waa marka salaada awrka la kiciye duhurkii laga furo 3 maalin guur wad baa la odhan jiray marka la tag baa jiray oo dhabar garaac baa jiray isweydiisina waa jiray heshiis gabadha carmalka ah imanka waxaan arkay in la yidhi weli la-aan ma mehersamaan ta carmalka ay markaa weli ma lahan jirin warqadeeda weli ahayd shareecadu sidan uma faafin de sidanay maanta u faaftay uma faafin marka guurku dee milgahoysiina waa inaga ka soo sheekaynay intaasoo qaabna waa u kala bixi jiray taladuna gabadha waxbay ku lahayd mar walba عمل إذا كانوا كومنتيغا سبسكرايبك شيرت لاكتا نو ودلال عداد دين والله واو هينا يا